السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كني سطحات برشادة مايكروسوفت اكسس داتابيس. هذا بعشر كنا واحد نكسو قادم دونا قابك الله سميو creative query قابك الله سو query أما creative query قابك لو كسو ترى سيدا كلا وحينو كبران دونا عشر كنا وحويان قابك لوجو سميو creative form with from wizard قابك لوجو سميو أما لو سوغريو database كا وين كبرانتون سيدا كلا وحن كبرانتون قابك record يدا أما مقعيدا يو ID card يدا local هريسيو هدي أي وحكا قلدمان هذا database كنا ماركينو base أهان أساساً وحنو كليك كراينتونا فايل أيان كليك سينتونا كدب وحن كدوران تونا black database ماشي كقرنتي أيان كليك كراينتونا هذا كان database وحن كصوب حيا مقعو بحي database كنا وحن بحنتونا تلصم company marka create وين create كلا دونا database كني marka waxay noo soo baxaya shaashada halka ka muuqata waa table 1 id qows ay ku xirantay new sidoo kale meel ay ku qorantay click to add ku soo dar marka si aan database ka noo isticmaalo amba database keena xogta u soo gelino waxaynu click garan doonaa meesha ku qoran tahay view meesha ay ku qoran tahay view ayaan furi doonaa dan waxaan ka dooran doonaa amba waxaan ka click garan doonaa design view database kan aad abuurayso design garee ayaan ka dooran doonaa marka design ilaahna wuxuu ku oran doonaa magac u bixi database kan aad design garanayso marka waxaan bixi doonaa telesom marka telesom bixino waxaan ku dhufan doonaa okay halka waxaan ka soo baxay waxa weeyaan file name iyo date iyo text mid kasta wuxuu qaadanayay id muxuu qaadanayaa number id ga number bay siin doonaa tin waxaan qori doonaa oo ka xigsiin doonaa name magac wuxuu qaadanayaa okay ay siin doonaa magacu shortkaas iyo longtkaas buu qaataa hadduu magacyo dhaadheer yahay long baa sii kartaa hadduu magac gaban yahay short baa sii kartaa sidoo kale waxaan ka xigsiin karnaa address isaguna shortkaas qoraal bay qaadanayaan markasta oo address amba xiriirka meesha laga xiriiriyo addresska laga xiriiriyaa qoraal ay isagana soo geli doonaa sidoo kale waxaan qori doonaa aanu ku darsanayna waxa weeyaan telephone wuxuu qaadanayaa number bayn siinayna waxaan qori doonaa aan ku darsan karnaa dollar haddii lacag tahay marka dollar muxuu qaadanayaa karan bayn siin doonaa isagana meesha currency ka qorantay ama currency sidoo kale waxaan ku qori doonaa yes waxa qaadanaysaa yes iyo no waan ka haynaa lacagta amba kama hayno sidoo kale waxaan ku xigsiin karnaa date wuxuu qaadanayaa date and time xilliga soo gelinayso date and time ayaan siin karnaa waxa ku xigi ka faahfaahin description faahfaahin qoraal buu qaadanayaa waxaan ku xigsiin karnaa picture soo geli sawir wuxuu qaadanayaa attachment ayaynu siinaynaa daatadeeni markaan saa xogtii halkan uu soo gurno aynu ID-gii number siino name-kii shortka siino address-kii shortka siino phone kan number siino dollar currency siino yes iyo no siino mid kasta wixii uu qaadanayay siino waxaan ku noqon doonaa meesha ku qoran tahay view ayaan click garan doonaa dan waxaan oran doonaa amba ka sii dooran doonaa data sheet view markaan ku dhufto marka wuxuu ku oranayaa xogta miyaa doonaysaa inaad isticmaasho waxaan rabaa inaynu isticmaalno aan ku save gareysano marka yes iyo no buu ku soo dhigaya yes ayaan ka dooranaynaa marka xogteeni waa halkan ku qoran marka maxaan soo gelinaynaa waxaan soo gelinayaa ID-gii
قف كمجي عيسي أدرس حافظ دقنا waxaan soo gelinaa phone numberkiisii waxaan soo gelinaa lacagta inta laga hayay $20 tig baan saari doonaa date-kiina halkan ka soo gelin doonaa waxaan oranaysaa $120 saas ugu soo qori doontaa qofka labaad isagana ID-giisa waad gelin doontaa kadib waxaad gelin doontaa magaciisa isagana waxaad gelin doontaa xaafadu degan yahay waxaan qori doonaa lambarkiisa lacagta laga hayo ayaa ku qori doontaa halkaan dollar calaamada saari doontaa date-ka soo gelin doontaa today 10 bisho tan waxaan qori doonaa $10 sawirkaad kale halka soo gelin kartaa sawirana way soo geli karnaa in xogta markaan sameeyno waxaan ku soo dari doonaa qaabka loo sameeyo magacyada loo kala horeysiyo halka waxaan ku qoran Ahmed xagga ka hooseysana Sara labada magac ayaynu kala horeysiinayna Ahmed iyo Sahra ayaynu kala horeysiinayna waxaad ku dhufanaa meesha ku qorantay create home bay joognaa dan halka waxa ku qoran accession iyo discussion labada ayaynu kala garan doonaa imika waxaan sirriisiyay Sahra oo gasho jigjiga yar lambarkeedu ka yahay $10 laga hayo dheedkeedu waa ka $10 haddii aan rabo inaan Ahmed sirriisiyo ka saraan ku dhufanaya Ahmed baan sirriisiyay haddii aan rabo inaan iska saaro waan ka saaraya remove waa ta koos qoran haddaba waxaan ku soo dari doonaa xogteena waxaan ku dari doonaa qaabka lagu sameeyo magacyo badan qaabka loo kala horreysay taas weeyaan waxaan ku dari doonaa qaabka loo soo isticmaalo create wizard inagoo ka dooran doona oo tagaynaa meesha create ku qoran tahay create ayaan ku dhufanaa dan waxaan ka dooran doonaa from wizard meesha ku qoran tahay from wizard meesha ku qoran tahay kadib waxaan oran doonaa yes miya doonayna inaan isticmaalno yes waan rabnaa inaan isticmaalno ayaan ku dhufan doonaa marka waxay noo soo gelaysaa xogtan halkan ka muuqato waa ID-gii name-kii address-kii phone-kii dollar yes date iyo description sidoo kale waxa ka hooseeya picture marka ma mirmir baan soo gelinaa mise mar baan soo wada gelinaa hal mar baan soo wada gelinay then finish it baan ku dhufanaa aan ku dhufanaa marka waan iska sugaynaa marka datadeena waa tan soo baxday xogteena waa tan ka muuqata halka waxa ku qoran waa dollar waxa ku xiga ID waxa ku xiga name waxa ku xiga sidoo kale address phone date description faahfaahin geli picture soo geli halka waa xogta ku soo qorantay database-ka isticmaalinay waa ta halka ku soo qorantay haddii aan rabo inaan ku soo celiyo aan iska kala skureeyo xogta haddaba aan sameeyo markaan rabo inaan sameeyo ama aan ku soo celiyo create ba tagi doontaa kadib waxa ka dooran doontaa create ba tagi doontaa create ba tagi doontaa kadib waxa create marka ka doorato waxa ka dooran doontaa xagga sare table-ka ku qoran tahay from wizard meesha ku qoran tahay isticmaal waan click gareyn doonaa then mar baynu ku soo wada dari doonaa xogta marka ku soo wada darno next baan siin doonaa finish it baan siin karnaa kadib wuxuu noo soo qoray ID-gii name-kii address-kii phone-kii dollar-kii date-kii description faahfaahintii picture-kii halka ayay noo soo galeen waa qaabka loo isticmaalayo waxaan kale ku soo darsan doonaa oo ku xigaya casharkeena qaabka lagu daro query marka query wizard baan ku darsan doonaa oo taas create baa tagi doonaa marka waxaan ka dooran doonaa query meesha ku qoran tahay markaan query gareeyo waxaan tagi doonaa okay ayaan siin doonaa then mar baan ku soo wada darinaa then finish baan siinayna weli naguma soo dirin markaan kala garaynayno waxa lagu soo darayaa
inaad marka hore qabato meesha ka qorantay create query meesha ka qorantay query ayaan click garaynaya then query keeni waa kan query design waa halkan noo soo galay marka add ayaan ku dhufanaya marka halka waxaan noo soo gashay Telesom iyo xog waan argaraynaya close baan iska siinaya halkan waxa inoo soo galay marka qaabkan soo geliyo qaabkan xogta soo geliyay halka waa ta ka muuqata halka waxa ka muuqda ID-gi iyo picture iyo description iyo phone iyo dollar marka waa qaabka loo design gareynayo ee query lagu soo darayo haddii aan mar labaad ku soo daro query aan iska close gareeyo haddii aan mar labaad ku soo daro close Telesom waxaan joognaa xogteeni database-keena aan soo bixinay Telesom kadib waxaan dooranaynaa create kadib waxaan ka dooranaynaa query design ayaan ka dooranaa halka markii hore ka dooranay from wizard meesha ka qoran tahay marka query design ayaan dooranaynaa marka query design doorano waan argaraynaa add marka xogtii waan ku soo darsanay xogtii waatan waan iska close garaynaa inta ku soo darsanay marka waa halka ka muuqata waa qaabka lagu soo darayo query iyo qaabka lagu soo darayo mar kasta laga soo daray create wizard qaabka lagu soo daray from wizard iyo qaabka query design lagu soo darayo database ka samaysay marka lagu soo darayo